السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا شرفتا بدن ee ku xiran channelka maanta waxaan soo qaadan doonaa 10 waxyaabood oo dadka isku kalsoon ayna sameyn kow dadka isku kalsoon maaha dad marmarsiyo badan dadka kalsoonida badani waxay qaataan lahaanshaha fikradahooda iyo ficiladoodaba halka dadka kale ay la yimaadaan marmarsiyo iyo in ay dadka kale wax saaraan markay qorshayaashoodii ay ka xumaadaan ama caqabad ay ka hor timaado waxa ay dadka isku kalsoon qaataan mas'uuliyad buuxda ficil kasta oo ay sameeyaan iyaga dusha saarta waqtigii ay cudurdaar iyo marmarsiyo ku bixin lahaayeenna waxay isku dayaan inay xaliyaan arrimahaas casharna ay u noqoto tani waxay keentaa in dadka aadka isugu kalsoonay ay dareemaan inay yihiin hogaamiyayaasha noloshooda dadkani waxay ogyihiin inayna macquul ahayn in la xakameeyo wax kasta oo iyaga noloshooda ku dhaca ama soo wajaha mushkilad kasta oo soo wajahadana waxay isku dayaan inay ku xaliyaan qaab fiican faa'iidana u leh noloshooda labo waxba kama soo qaadaan waxa ay dadka kale ka qabaan ama ay ka aaminsan yihiin dadka kalsoonida leh way ogyihiin in aanay ahayn perfect qof perfect ahna aanu jirin sidaas darteed fikradahooda ayaaba ah in aanay ka fikirin waxbana ka soo qaadin waxa dadka kale ka aaminsan yihiin dad iyaga laftigoodaba aan ahayn perfect haddii aynu eegno dhanka kale iyo dadka aan isku kalsooneen waxaa jira dad riyooyinkoodii iyo noloshoodiiba u joojiyey dad kale dartood baqasho ay ka baqanayaan waxa ay dadka kale ka dhihi doonaan ama ay ka aamini doonaan dadka isku kalsoonay way ka duwan yihiin waa dad marka ugu horreysa iyagu isjecel noloshoodana qiimaha ay leedahay og ma wadanayaan waxa ay dadka kale ka aaminsan yihiin iyaga muhiimadoodu waa inay iyagu isku qanacsan yihiin waxay og yihiin in asxaabtooda dhabta ah iyo faamilkoodaba ay ku aqbali doonaan kuna jeclaan doonaan sida ay yihiin wixii aan intaa ka ahaynna iskuma mashquuliyaan saddex kama ay baqdaan in ay sameeyaan waxyaabaha iyaga cabsi geliya dadka isku kalsooni waxay og yihiin muhiimadda ay leedahay in lagu dhiirado samaynta waxyaabo dadka badankooda aanay samayn karin iyaga waxaaba ka dhaadhacsan in samaynta waxyaabaha iyaga cabsi geliya ay ka caawinayso inay koraan shakhsi ahaan mid maskaxeed ha noqoto iyo mid jidheedba waxay og yihiin in waxyaabaha ay ka baqayaan inay sameeyaan ay inta badan yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee gebi ahaanba beddeli kara noloshooda tusaale waxaa laga yaabaa in qof aan isku kalsoonayn uu maskaxda ku hayo fikrad aad u fiican taas oo run ahaantii beddeli karta noloshiisa haddii uu ku dhac leeyahay laakiin cabsi iyo kalsooni darro uu naftiisa ku qabo aanay u suurtogelin midho dhalinta fikraddaasi dadka isku kalsoon sidaan sheegay waxayba jecel yihiin waxyaabaha cabsi geliya sababtuna ay tahay sida aynu soo sheegnay oo ah in waxyaabaha adaga ay inta badan yihiin kuwa dadka noloshooda beddeli kara tusaalihii aynu soo qaadanay halka qofka bilaa kalsoonida ay aanu ku dhac lahayn fikraddiisii ficneedna ay sidaa ku daysay qofka isku kalsooni wuxuu markiiba gudagalaa kaga hormaynta fikraddaas afar dadka isku kalsooni ma aha dad si fudud isu dhiiba dadka aan isku kalsoonayn waxay caado u leeyihiin in ay si degdega isu dhiibaan oo ay u quustaan marka ay waxa ay doonayeen u hagaagi waayaan dhanka kale haddaynu eegno dadka isku kalsooni si kastoo ay u turunturoodaan si kastoo ay caqabado ka hor yimaadaan maaha kuwa isdhiiba iyaga caqaladahan waxaa kala muhiimsan natiijada u cad ee ay doonayaan inay gaaraan waxay og yihiin in qof kale uusan uga rumayn doonin riyooyinkooda iyo himilooyinkoodaba aan ka ahayn iyaga laftigooda sidaas darteed waxay qabtaan shaqo kasta oo ka hor timaada si ay uga midho dhaliyaan himilooyinkooda shan isma difaacaan marka la saxo dadka isku kalsooni waxay og yihiin waxyaabaha ay ku fiican yihiin iyo waxyaabaha ay ku xun yihiinba dhaliilaha iyo waxsheegga ay dadka kale kala kulmayaan waa ay qadariyaan iskuna dayaan inay fahmaan halkii ay difaac iyo isxanaajin geli lahaayeen marka ugu horraysaba waxay isgeliyaan kabaha qofkan iyaga dhaliilaya ama wax u sheegayaba taasoo ay micneedu tahay in arrintan uu qofku u sheegayo ay ka eegaan dhinaca qofka iskuna dayaan inay fahmaan waxa uu qofkani ula jeedo arrintan taasi waxay ka caawinaysaa in aanay markiiba maskaxdooda qafil saarin isdifaacna gelin laakiinse ay fahmaan waxa uu qofkani ka hadlayo marka halka dadka badankoodaba ay difaac galaan marka wax loo sheego waxa ay dadka isku kalsooni u arkaan in ay tahay fursadda oo ay ku horumarin karaan noloshooda haddii ay tahay mid la qaadan karo dabcan lix kama masayraan ama kama xumaadaan guusha dadka kale qofku markuu naftiisa ku qanacsan yahay iimaan ku filanna leeyahay kama xumaado dadka kale taas oo aan ula jeedo haddii qofa isku kalsoonay uu arko qofka taajeysan ka maskax badan amaba ka qurux badan aanu haba yaraatee wax ka soo qaadin kana xumaan qofkaasi wuxuu ku faraxsan yahay nolosha uu allah siiyey wax cadaadis ahna kama dareemo dadka kala duwan ee ku hareeraysan
wax kasta oo aad ku fiican tahay waxaa jira dad kaasii fiican sidaa darteed ku qanacsanaanta aad ku qanacsan tahay naftaada iyo waxa uu Allah ku siiyey waxay meesha ka saaraysaa dareenka hinaasaha dadka kale waxaa kaloo muhiim ah in maskaxda lagu hayo isbarbardhigidda dadka kale ee joogtada ahi waxay marka dambe keenaysaa inaadan haba yaraatay qiimayn noloshaada xataa haddii aad meel fiican ka gaarto sababtoo ah waxaad mar kasta isbarbardhigaysaa dad maal ahaan iyo maskax ahaanba kaa sarreeya 7 dadka isku kalsooni maaha dad dadka kale ku jeesteesa ama yasa mid ka mid ah calaamadaha ugu muhiimsan ee dadka isku kalsooni ay leeyihiin ayaa ah awoodda ay u leeyihiin in ay si buuxda ugu faraxsanaadaan naftooda iyagoo aan u baahnayn inay hoos u dhigaan dadka kale qofka aan isku kalsoonayn waxaad arkaysaa isagoo qof kasta wax xun ka sheegaya ama ku jeesjeesaya waxaasna wuxuu u samaynayaa si uu nafsiyan u dareemo inuu dadkaas ka fiican yahay fiicnaanshaha uu dareemayo inuu dadka uu wax ka sheegayo ka fiican yahay ayuu farxad ka helayaa haddaynu eegno dadka isku kalsoon ma arkaysid iyagoo ku jeesjeesaya dadka kale halka ay dadka bilaa kalsoonida ay yasaan hoosna u dhigaan dadka isku kalsooni waxay jecel yihiin in dadka ku hareeraysani ay faraxsan yihiin wax aan wanaagooda ahaynna kama shaqeeyaan 8 shakhsiyaddooda ma beddelaan si ay dadka kale u jeclaadaan dadka isku kalsooni waxay mar kasta jecel yihiin inay dadka kale kula dhaqmaan dabeecaddooda saxda ah iskumana dayaan in ay isbeddelaan si ay dadka kale u qanciyaan waxay og yihiin in haddii aanay naftooda run u sheegin kuna socdaan waxa ay dadka kale ka doonayaan aanay noloshooda weligood farxad ku noolaan doonin sidaas darteed waxay mar kastaba noloshooda iyo farxaddooda ka dhigaan muhiimadda koowaad iskumana mashquuliyaan waxa ay dadka kale ka odhanayaan ama ay ka aaminayaan weligaa ha u noolaan dad kale hana kulmin wakhtigaaga inaad iska dhaadhicisid dad aan wax qiimo ah kuugu fadhiin 9 ma aaminsana in ay ka qiimo yar yihiin dadka kale dadka isku kalsooni waxay og yihiin qiimahooda shakhsi ahaanna ay la mid yihiin dadka kale tan waxay ka dhigan tahay inay og yihiin in ay xaq u leeyihiin inay naftooda difaacaan himilooyinkoodana ay kaga rumeeyaan sida qof kastoo iyaga la mid ah oo dadaalaaba uu ugaga rumeeyo riyooyinkiisa qodobka 10aad oona ah kan ugu dambeeya ayaa ah in dadka isku kalsooni aanay wakhti badan ku bixin go'aanada yaryar calaamadaha lagu yaqaano dadka aan isku kalsoonayn ayaa ah in ay wakhti badan ku isticmaalaan go'aano aad u yaryar waxaad arkaysaa in go'aan yar oo run ahaantii wax qiimo sida u sii weyn aan lahayn ay wakhtigooda inta badan ku isticmaalaan intaasna wax kale isma weydiinayaan aan ka ahayn in go'aankan ay qaateen uu yahay mid sax ah iyo mid khaldan sababta ay wakhtiga badan ugu bixinayaan go'aankan yar ayaa ah kalsooni darro ay iyagu naftooda ku qabaan waxaanay haba yaraatay ku kalsoonaynba naftooda taas ayaana keenta in wax kasta oo yar ay qabtaan ama ay go'aansadaan inay sameeyaan ay wakhti aad u badan oo aan loo baahnayn ay ku isticmaalaan tani waxay marka dambe keentaa in dadka noocan ahi ay ka bixi waayaan fikir iyo iscanaanasho joogto ah go'aan kasta oo ay qaadanayaan dhinaca kale dadka isku kalsooni waxay ku kalsoon yihiin kartidooda iyo caqligoodaba waxayna wakhtigooda geliyaan waxyaabaha muhiimka ah haddii daawada fiidiyoga uu ku qanciyey لايك تا iyo subscribe ta naga ilaawin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.